Gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Ismaan Cali ayaa ku baaqay in loo gurmado dadkii saameynta ku yeelatay fatahaadii uu sameeyay biyaha webiga Shabeelle kuwaas oo haatan xaalad nolol xumo ay ku haysato deegaanada Ceel Jaale iyo deegaanka Shiirkaneeco. Sheekh Xuseen ayaa ku baaqay gurmad degdeg ah. runtii hadda meesha aan joogno waa faras magaalkii waaye xeerada magaalay waatane waa faras magaalkii daabshiil waa ujeedin biyi marka meel walba waa camimeen biyi xaafad kasta biyaa jira xarumihii dawladda waa ka soo ujeedin meel kasta biyaa buuxa boqolkii markaan fiiriyay barakaca boqolkiiba 60 waxaa la joogaa Ceel Jaale boqolkiiba 30 xaafad ay ku hareen ilaa hadda daad gureynta wadnaa kan caagafti dadku waa wadnaa boqolkiiba 10 waxay u carareen Shiirkaneeco iyo Ceel Jaale meelahaas la aaday biyi waxay saameeyeen tuulooyinku way saameeyeen ilaa hadda dadkii ma aysan helin gurmadkii loo baahnaa ma aysan helin waxaa jira bacihii iyo taydooyin lama haayo biyo lama haayo raashin lama haayo daawo lama haayo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo heelan sarfalkan oo ka baadisana fursad ay siiseen in gargaar emergency loo baahan yahay gargaar emergency loo baahan yahay inay dadka ka soo gaaraan wax ay qaban karaan ay qabtaan aad iyo aad u mahadsantiin dowladda dhexe iyaga hadda waa nala joogaan qayb kamid ah nala joogta iyagana waxaan leenahay insha Allah haddii Ilaahay waa lagu soo maqan yihiin wasaaradda gargaarka ugu soo maqan iyagana waxa waa sugaynaa wasaaradda qorsheynta wasaaradda gargaarka wasiirka boosas waa lagu soo maqan yihiin iyagana hildaan leenahay dhawaan waxa waa raashin ay soo wadaan marka insha Allah haddii Ilaahay waxaan leenahay heedan safarka maxaa markasta aan ku celinaa dadka ilaa hadda kuwa magaalada jooga waxba ma helin kuwa Ceel Jaale waxba ma helin waxaa looga baahan yahay inay gurmad sameeyaan inay dilaan sameeyaan inay dadka soo gaaraan. Hadalka gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dawladda ay xireen inta u dhaxaysa beledweyne iyo deegaanada Ceel Jaale iyo deegaanka Shiirkaneeco oo ay ku barakaceen badi dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha webiga Shabeelle. Maryan Maxamed Cali, Radio Wadina TV, magaalada Beledweyne.